يعني واحد ما هداد وسيرته واحد وسير كنتها مقعان هدي الرئيس الوزراء واحد رئيس الوزراء كنتها مقعان يعني قيبته أن هي أياسيتي أوكي إن لا حبضايو إن لا هجومو إن لا واتشيكتو واحد كنتها لنا معها فرماجة هي فهد ياسين وإذنك واحد تاجر ستينا ما إذا لا تاجر سنين annaga waxaan nahay shacab waxaanu degannahay mantaqadan muqdisho aan degannahay waxaan nahay dad mantaqaana rayid ah waxaan nahay dad nabad ku noola waxaan nahay dad dawlad ku noola ma rabno mantaqaana dagaal iyo maxay iyo rabshad midna ma rabno marka maanta habeenka dheeyna farmaajo soo deel dhaha Madiina Manwara joog farxadeena ma la soo koobi karin indhay waa ilmeynay laakiin hadda muxuu nagu noqday رحمة الله تعالى وبركاته وموسى إسماعيل أو قصة دقمة كاران ما أنتوا وحنا من دقمة كاران وحرمنا بالشدة دقمة كاران كنا خن إن نويدينه سؤال كم إذا أريما هذلك كتاجن بلدا وشو نكسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد عبد الله محمد محمود كسودو برتان فيسبوك كلنا هنا إجرسور ميديا وكله وأنا مع سنتين أوكي أريمها وهذا ذلك كجيرو وهذا تاجن ما فكرة أو كقبت هذه هان waxaan fikri aan ka qabaa inuu madaxweynaheeni hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaga taga wadanka si loogu soo dhaweeyo asoo boorso wato ilmihiisina Ameerika ku nool yihiin anaka aan ku noolnahay Muqdisho waxaan ka codsanayaa inuu isaga taga wadanka oo una dagaalo sokeeyna gelinin ayaan ka codsanayaa madaxweynaheeni hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isaga taga wadanka okay barnaamijka hadda la ilaamiyay ee hadda taagan oo birito jimcaha dhici doono dadka taageersan ma ku jirtaa mase kuwa ka soo horjeedo waxaan ku jiraa dadka taageersan ayaan ku jiraa waayo wadankan xoog lagu ma haysan karo xoog hadii lagu haysan karo adeerkiisa 20 sano xoog ku hayslahay waana laga raacdiyay okay kursigan loo kala ordaya isleedahay wuu ku haboon yahay qofkaas ku haboon fikir ahaantaada musharaxiinta waxa ay gula haboon wadanka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay gula haboon kursigan loo koraha asaga gula aad iyo maasanta adaa mudan assalaamu alaykum wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga waxa la Rabbi Umar ku soo dhawow Facebook page ka aan ku leenahay Garsoor Media waa ku dhawaad okay arinta hadda dalka ka taagan maalmahan bilahan dambe maxaa fikir oo ka qabta adiga ahaantaada wallahi ma fiicna sida khayr Allah na waafajiyo okay banaabaha ay ilaamiyeen midowga musharaxiinta oo birito dhici doona adiga ahaantaada ma waxa ku jirta dadka taageersan mise dadka soo horjeeda dadka taageersanaan ku jira banaabaxna waa inuu noqdo banaabax nabadeed madaafiican aragna madaafiicna ma rabno nabadeed ha noqdo dadka hortaagana ka leexdaan dadku baraaro hore ka hadlayaan aqligooda ka hadlayaan fikirkooda ka hadlayaan sidaan mataqaana wixii fikirkeen inuu ka hor istaagaysaa way maxaa dhacay okay adiga ahaantaada yaa isleedahay kursiga uu ku habboon yahay oo aad u dooran lahayd warif cirka loo tuuro way qofkii ilaahay nasiib ugu daraa mataqaana kursiga qaadaysa عدة سكابون تلا هنا ما جرتو كرسي يقول واحد واي ورف عرك الله تورو كله عدي إلهي نصيب وقد أهليس أوكي وما صنته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وعثمان أبو كرحس كسودو برتا عن فيسبوك كلنا هنا قرصور ميديا هذه مدوها سؤالها كويدير من واحد كم ده أرنت هذا الدل كتاجن أذيك أهانت هذا محاك قبتها سيدي كلها هاي بل فكر كاي horta aad iyo aad mahadsan tahay dalka waxa ka jira waqti xaadirkan waa siyaasad aad u qalafsan waqti dawladda waa horay bay noo soo martay dawladda kalena waan aragnay haddana dawlad oo madax u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigeeda dhamaaday baa waqtigan yaani loo sacabato maaho wali xeydanays waxa jira marka aniga fikirkayga hadaan ka dhiibto waxaan leeyahay dalka iyo dadka dad ma taqaana u maqan maanta uma bajeedo waayo tii horena waan arkay kuwii hore uga dawladda uga dhacayna waan arkay yaani hadafkooda siyaasadeed waxaan leeyahay maanta shacabka qof mitisha oo garsoor daacada hadaf daacada amni daacada siyaasad midaysan oo khiyaano ka miiran tahay ma taqaana haya maba ii muuqato aniga kuwii hore haddaan fiirsho hadda xuslinaya kuwa hadda ka dhacay hadda u taagan iyo kuwa orday inta badan fiiriyo danta dadweynaha uma jeedo shakhsiyan okay midowga musharaxiinta banaabaha ay ilaamiyeen midka jimcaha oo birito ah
maxaa ka qabtaa adiga ahaantaada ma taageersantaa mise waa ka soo horjeedaa horta banaanbaxsiisa waxaa waaye xorriyad ka hadal waaye haddii uu banaanbaxii internationalka uu yahay waa xorriyad ka hadal wax dhiba uma arko laakiin waqti xaadirkan Soomaaliya markii loo fiirsho banaanbaxyada ka jira ma aha banaanbaxyadii la arki jiray haddana khaasatan kuwa hadda jira banaanbaxii loogu talagalay oo mataqaanaa xorriyad ka hadalka waa uu ka duwan yahay waayo waxaa hormood u ah dad horay siyaasadda u soo galay horay u soo shaqeeyey shacabka uu wada yaqaano oo yacni waxqabadkooda siyaasadooda runtooda iyo beentooda laga wada dhirigsan yahay dayib haddii dad cusub ay ahaan lahaayeen oo siyaasadda ku cusub waxba kama sheegi lahayn waxaan dhihi lahayn waa dad cusub laakiin banaanbaxa hadda la iclaamiyey maxallu shaahidkiisu waa dadkii hore dalkan u soo maamulay ayaa wata kan ka hor jeedana asagana wakhtigiisu waa uu dhammaaday marka waddanku xaaladiisuba kala guuray ku jirtaa waxaan leeyahay yacni dadka iyo dalka ha loo naxo ilaahayna ha laga cabsado okay su'aasha kale ku weydiinaya waxay tahay kursiga loo kala ordaayo ee loo kala socdo yaa isleedahay uu ku habboon yahay oo aad u dooran lahayd shakhsi ahaantaada aad iyo aad mahadsantahay kursigaani horta waxaa waay Soomaaliba u dhaxeeya cid hadda maantay u qorshaysan oo u taagan inay ku guulaysato ama ay qabato shay karna ma jirna annaga waayo 12-45 qofood baa kala ordaysa nin waliba wuxuu xeydanayaa inuu kursigaas fariisto haddii fikirkayga aan ka cabiro hal nin oo maanta danta Soomaaliyeed ku maqan ee aan leeyahay kursigaas u socdaa oo sheegi karin ma jirin kan hadda ku fadhiya haddii uu tartamo oo u qaylsho wallaahi danta Soomaaliyeed ku maqan mali aniga kuwii hore uga dhacayna waaba la arkay kuwaas marka anigu hadda qof aan maanta u dooran lahayn dhihi lahay qofkaasi madaxweyne waddanka ka noqdo oo aan sheegi karo ma jirto okay waa maasantaa aad iyo aad waa maasantaa adinka annaga waxaan nahay shacab waxaanu degannahay mataqaanaa mantaqadan muqdisho aan degannahay waxaan nahay dad mataqaanaa rayid ah waxaan nahay dad nabad ku noola waxaan nahay dad dawlad ku noola ma rabno mataqaanaa dagaal iyo maxay ahayd iyo rabshad midna ma rabno waxaanu aaminsannahay inaan fikradeenna cabirno oo banaanbaxa aan cabirno fikirkeenna inaan cabirno aaminsannahay fikradeenna inaan cabirno kuwa dhahaya fikirkaygaan cabiraa waxaan rabnaa anagu maxay banaanbax nabadeed banaanbax qoray wata ma rabno kuwa dhahaya mataqaanaa waa banaanbaxaynaana waxaan rabnaa igoo gacmo raaraca oo tabeelle sita inay dadka hor kacaan annaguna saasaan ku daba kacaynaa banaanbax nabadeedaan rabnaa dawladdaan u sheegaynaa maxay ahayd midowga musharaxiintaan u sheegaynaa hay'adaha mataqaanaa hay'adaha garsoorkaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa maxay ahayd bulshada rayidkaan u sheegaynaa waxaan rabnaa maxay ahayd okay banaanbax nabadeed okay marka banaanbaxa ay iclaamiyeen mar labaad midowga musharaxiinta maxaa ka qabtaa adiga ahaantaada aniga waxaan ka qabaa midowga musharaxiinta banaanbaxa ay iclaamiyeen inuu noqdo mid nabadeed ay nabad ku hogaamiyaan aan rabaa sax mid qoryo wata ma rabo dawladda inay ka hor timaadna ma rabo sax okay kursiga laisku haysto loo kala ordaayo yaad isleedahay wuu ku habboon yahay oo aad u dooran lahayd adiga ahaantaada kursiga qofka ilaahay u kaso ku habboon qofka rabbigay u kaso ku habboon annaga dimuqraadiyaan nahay waxaa ka kala degay laba madaxweyne ku kala degay madaxweyne saddexaad noo soo baxay waa noo shaqeeyey waa mataqaanaa waa taageernay kii soo baxan taageeraynaa macna okay waa maasantaa waddanka in dictatoriyad lagu haysto ayaan ka qabaa aniga haddaan ra'yigayga ka hadlo madaxweyne afraad waaye nimankaas nimaan xoog looga qaadinna weligiis mahana nin kale kama tegin marka afartiisii sano waa laystay ha naga tago hadduu waddanka dagaal geli rabana ha geliyo okay midowga musharaxiinta banaanbaxa ay iclaamiyeen berito jimco ah ma waxaa ku jirtaa dadka taageersan mise dadka soo horjeeda waa dadka soo horjeedan ka mid ah okay sababtu waxa waaye dagaal ayay mataqaanaa iclaamihayaan sax oo haddii laydin xabadeeyo adina wax xabadeeyo isleeyihin dagaalku hadduu bilaadana wax jooji kara ma leh waa socaha marka waxay ila eg tahay 22 haddii mataqaanaa dagaal xamar ka dhaco wixii ka dhaco kale marka taageerayaan
uma ihi ibliiska okay marka yaa isleedahay wuu ku haboon yahay kursiga madaxweynenimo yaa isleedahay wuu ku haboon yahay kursiga madaxweynenimo ma kursiga madaxweyne intii soo martay waxba kama rabneen nin cusub ha noogu dhiibaan saasaan leedahay aasaasan leeyahay ma asan tahay inta wadanka ku jirta wadanka wax badan oo soo joognay horta wax walba waxa gundhig u ah nabadgelyo haddii la helo wax walba iyada u horeysa nin walba nabadgelyo jiryaan leeyahay nin walba dantaada khaas ah fiirsanayna nabadgelyo raadi okay midowga musharaxiinta banaanbaxa ay iclaamiyeen oo dhici doona berito jimco ah maxaa ka qabta adiga ahaantada waxa ku jirta dadka taageersan mise dadka soo horjeeda banaanbax oo nabada siday sheegeen waa taageersanahay waana banaanbaxayna wara tegayna okay yaa isleedahay wuu ku haboon yahay kursiga madaxweynenimo oo aad u dooran lahayd shakhsi ahaantaada baasha wareegtada waa iska wareegto kursiga qofta ilaahay calfana helaysa nin heblan jacalay nin heblan taageersana ku imaan mid alla u qora imaanaysa يعني شخصيا أنا هديان قف دير هاي داير محمود قال له بدير أوكي أدي هذا ما صنته ما قاعد عروة على عبد الله محمد كسودو برتان فيسبوك لنا نيجر صور ميديا هدي هذا وحده ما صنتي أوكي ميدوق مشرحين تبنا بها إعلاميون بريتو جماعة ميدوق مشرحين تبنا بها إعلاميون بريتو جماعة ما واحد كوجرت عدد كتاجر سمس عدد كسور جد هذه هرت أناجو تصومار اللي بيصوم مرتين واحد تاجره ما فعنا إن جو ونكسن يلا بحد شبلين نظام ربنا أنا خسدت إن أنكو أنسجاشن كي سديد أن كلها بنهرتنا ما أنفعل هذا النظام اللي يسكر عسني هي مدة مشرحين هي دولة هي وحي بحلها هي يسكر عسني وربنا لكن وحاف عن إلى تحق اليوم بقى أنا وهذا إسكهرباء أنكو صديق وحبانته وحيكون عسني إلى تحق اليوم مدة مشرحين waxay tabanayaan laga bixiyo waxay shaqadahay sheegayaan hadii sharuuda in la reebi karo wala reebi karo waxa dawladda ay reebaan ma jecla saasan jecla okay ya isleeda uu ku haboon yahay kursigan madaxweynenimo aad u dooran lahayd shakhsiyaantaada horta ilaahay wax ku haboon annanku waxaan ilaahay wuxuu nasiyo qofku nasiyo wanaagsan oo markaas ilaahay noo xukmiyo horta noogu haboon kursiga Soomaalina halka hadda jooga iyo halka imaad doona waxa macnaheedu kordhimaan maxaa dhacay halka hadda arkana wala arkay kuwa hadda rabana wala arkay annanku hadii jawi cusubnin shariicada islaamka wax ku dhaqaaya oo qaabka kale oo dastuurkaas iyo shariicada islaamka wax ku dabaqaya baan anficilahay aad iyo aad oo culimo insha Allah waa maasantahay insha Allah dalka xaaladda ka jirta waa ka xunnahay qaasatan annaga waxaan nahay shacab Soomaaliyeed waxaan nahay shacab dawlad ku nool ah waxaan nahay shacab dawlad raba waxaan eedaynaynaa aniga shakhsi ahaan hadii aan idhaaho 4 nin adduunyada Soomaaliya waxay noqotay 4.5 cid waliba waxay ku timid 4.5 waxa naga socda anaga rasuul wasaaraha waxaan eedaynaa aniga shakhsiyan hadaan ahay rasuul wasaaraha Umar Xasan Cali Sow ayaan eedaynaa rasuul wasaaraha waxaan leeyahay dalka waxa ka socdaaho ninkan namitila waa rasuul wasaaraha waa wasiirka amniga waa gubernatooraha gobolka waa wasiirka arrimaha gudaha in aad dalka aad u dhalateen iyo dadka aad ximnahan ku qaadateen oo idinka يعني واحد ما هداد وسيرته واحد وسير كتاب مقعان هدي الرسول وسارته واحد الرسول وسارة كتاب مقعان يعني قيبته عن هاي أياسيتين أوكي إن لا حبضايو إن لا هجومو إن لا واتشيكتو واحد كتاب لنا معها فرماجة إيا فهد ياسين وإذنك واحد تاجر ستين ما إذا لا تاجر سنين ساس أولاً مدحوينها قرنك شلا وحي أو شيء وحى أو ما أنت وذا وح كلا دوان وحول هاي السوشيال رحمة وحول هاي أنا أقول ما إيماني وحن سمينا يا ذلك دب أسر السعودة أيام ودونا يسن وصلحيا معهن قفكو شلا بنتو أو شيء ما أنت وبين وركو شيء شلا بين بوكدك وحربنا إذنكو ساسك رسول وساري وساسك وزيرك أمنه أساسك وزيرك أرماه جوده أساسك غوبرناتوره أساسك أنك هذا ذوك الشقيستين ما إن أنك نلالايو أو نلاقومادو أو نلاقوميستو من القيب تاني كوختين وما يسوعش. السلام عليكم. وعليكم السلام. مقعد. صلاة محمود معو. كسودو بيج فيسبوك عن كلنا نيجاسور ميديا. ما شاء الله وكدوه. أوكي. أنت هذا الدلك كتاجن. حالة أهانتها اللي جرو هذه أهانتها هذا فكر نوعك قبتها والله فكرة ده عنك قوم حياتها هاي ما شاء الله تبارك الله مرك هروا وبجين رنت أنا جو مدينة منورة في سرعة ما علنت اللي دورته وهبين كيني عنك فكرة فاسنتها لكن هدرتان
ballanqaadyadii oo kulli oo ballan qaaday ninkaas waa nooga baxay madaxweyne jira uma leeyahayna madaxweyne jirana waa naqa diiday fahansantaa marka maalinta habeenkii dhayna farmaajo soo dayl dhaha Madiina Manooraa joog farxadeena ma la soo koobi karin indhay waa ilmeynay laakiin hadda muxuu nagu noqday tin wuxuu nagu noqday meesha oo shalay oo ka soo galay aan ka tilaabsanin marka waxaan leeyahay aniga farmaajo maya uma hay boss okay marka midowga musharaxiinta banaanbaxa ay cilaamiyeen oo Brito micna dadka taageersan ma ku jirtaa mise dadka ka soo horjeeda taageersan ku jira ma sha Allah tabarakallah dadka taageersan ku jira waxaan jeclahay in qof walba ra'yigeeda ay ka hadasho lagu soo dhaweeyo oo nabadna ku dhaco ha okay yaa u dooran lahayd kursiga loo tartamayo madaxweynenimo kii rabbi subhanahu wa ta'ala oo calaf ilaahay ugu daro okay aan soo jeclaa lahay Sheikh Sharif ama santa okay